بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها مامل gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Dr. Xasan Maxamed Xuseen Mungaab markii uu la tashi la sameeyay qoysaska looda ku dhaqda gudaha caasimada markii uu arkay caqabadaha lagala kulmo looda caasimada dhaxdeeda lagu dhaqdo taas oo sababta dhibaatooyin ay kamid yihiin kow nadaafad daro ka dhalata looda oo wadooyinka halbowlaha ku dhax saxaroota ama wasaqda iyo qashinka ay daaqayso ku fardhisa taas oo caafimaad daro ku keenta dadka iyo deegaankaba labo qalqalgelinta isku socodka gaadiidka taas oo sababta shilal iyo khatar soo wajaha badqabka dadka iyo gawaarida sidoo kalena kordhisa ciriiriga iyo jaamka wadooyinka saddex caqabad ku timaada dadaalada maamulka ee dhireenta iyo cagaareynta caasimada maadaama ay la wada cunayso dhirta loogu talagalay in lagu talaalo hareeraha wadooyinka si ay qayb ugu qaataan qurxinta iyo bilic soo celinta magaalada afar halista caafimaad oo soo wajahda looda iyo dadka ku intifaacsadaba maadaama ay looda cunto wasaqda bacaha iyo waxyaabaha aan loogu talagalin in la cuno kadibna hilibkeeda iyo caanaheeda oo aan nadiif ahayn laga iibiyo bulshada sidaas darteed markii uu tixgeliyay xaaladahaasi aan kor ku soo xusnay iyo kuwa la midka ah oo ay in muddo ahba cabasho ka qabeen bulshada ku nool magaalada muqdisho waxa uu gudoomiyaha maamul gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho soo saaray go'aanada soo socda kow waxaa si buuxda loo mamnuucay looda lagu soo daayo wadooyinka magaalada taas oo maamulka u aqoonsaday mid sharci darro ah oo ay tahay in talaabo laga qaado labo waxaa dadka looda ku dhaqda caasimada la siiyay muddo 2 toddobaad ah oo ka bilaabanaysa maalinta Sabtida 13 Juun 2026 kuna eeg 27 Juun 2026 si ay u qaataan mas'uuliyadda ka saaran looda ay ku dhaqaaleystaan uguna xareystaan xerooyin iyo goobo loogu talagalay saddex marka ay dhamaato muddada 2 toddobaad kadib loodii lagu arko wadooyinka caasimada waxaa la wareegi doona maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose muqdisho waxaa loogu mahadnaqayaa qoysaska looda ku dhaqda caasimada wada shaqaynta iyo niyad samida ay muujiyeen dadaalka uu maamulka gobolka banaadir ku doonayo hagaajinta bilicda iyo horumarka magaalada